Islaamku waa nidaam dhammaystiran oo wax ka qabta dhammaan dhinacyada nolosha. Waa dawlad iyo dal, ama dawlad iyo ummad. Waa naxariis iyo cadaalad. Waa dhaqan iyo sharci. Waa jihaad, ciidan iyo fikir. Diinta Islaamku waxay ilaalisay dhammaan dhinacyada nolosha bulshada, haddii ay tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo dhammaan wax walbo ay ka kooban tahay nolosha aadamaha. Islaamku waxa uu ahaa uuna yahay diinta keliya ee sintay qowmiyadaha, dumarkana siisay xuquuqdooda, sharciyeysay xaqa dadka masaakiinta ah, dhidibada u taagtay cadaaladda. Islaamku kama tegin wax weyn iyo mid yar toona. Islaamku ma ahan diin cibaado oo keliya, mana ahan mid ku kooban meel gooni ah iyo masaajidda, balse Islaamka dhabta ah waa in aadamaha uu la fangalo koonka iyo bulshada uu la nool yahay, waana mid faa'iido u leh aadanaha oo dhami.